السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhammaantiin waqti walba iyo xilli walba ay ku tahayba kusoo dhawo barteena MK Skills One. بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته، وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى. ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى. soo noqod wanaagsan dhammaantiin waa mar kale iyo muuqaal cusub. haddaba maanta waxaanu kusoo gudbin doonaa muuqaalkan update yar oo aynu soo kordhinay. sidaa ogsoontihiinba halkan waxay ahaan jirtay Somali Online Opportunities, laakiin hadda waxaynu u bedelnay MK Skills One sababa channelkan isbedel ku samayn doono. sidaa daraaddeedna ayay qayb ka noqotay inaan magaca aanu bedelno oo aynu u bedelno MK Skills One. horey bartaan waxaynu kusoo gudbin jirnay waxyaabaha la xiriira online business yada, gaar ahaan haddii aan leeyahay maxaa la yiraahdaa forex market iyo maxaa la yiraahdaa technical iyo fundamental iyo everything oo la xiriira, iyo sidoo kale inaan soo gudbino waxa la yiraahdo maxaa la dhahaa cryptada iyo sidoo kale iyadana informationkeeda iyo warbixinteeda oo dhammaystiran. laakiin hadda sidaas wax ayaanu ka bedeli doonaa. waxaanu ku ogaan doontaa muuqaalkan waxyaabaha aynu soo gudbin doono iyo waxyaabaha aynu halkan aad kaga bogan doontiin hadduu eebbaha awoodda leh oo idmo. kusoo dhawow MK Skills One. haddaba mar kale kusoo dhawow barteena MK Skills One. sidaad la socotay muddooyinkan u dambeeya oo dhan wax muuqaala maana soo gudbinin sababo la xiriira mashquulkeena oo aad u yara fara badnaa iyo maxaa la yiraahdaa anagoo system kale iyo waxyaabo kale oo maaragtay si aan dadka waqtigii qayb aan uga siiyo aan kusoo gudbin lahaa aan maaragtay uga faa'iideeyo. waxyaabo badan ayaan sidaa daraaddeed aan waqtiyadii u dambeeyay oo dhan ku howlanaa. sidaa daraaddeed hadda ayaanu helay inaan waqtigii qayb ka mid ah idin siiyo oo isbuuci hadda eebba awoodda leh oo inoo ogolaada aan hal iyo intii rabto aan noqotay hal waxtar leh oo tayadiisa wata aanu halkan idinkugu soo gudbiyo. soo mar kale kusoo dhawow barteena MK Skills One. horey sidaa ula socoteenba magaciina hore wuxuu ahaa Somali Online Opportunities, laakiin hadda waynu bedelnay. waxyaabaha aan nagu kalifay inaan bedelno wax kale ma ahan. sidaad ogsoontihiinba YouTube korkeena xitaa waa bedelnay oo haddaad kor uga jeedid waxaanu soo gudbinay laba mawduuc inta badan aanu kaga hadli doono bartaan. hadday ahaan lahayd online businessyada, gaar ahaan forex market iyo cryptoda, iyo sidoo kale haddii ay ahaan lahayd maxaa la waxyaabaha la xiriira teknolojiga sida halkan ujeediinba. haddaba forexka weli casharaan badan iyo muuqaalo badan iyo taxanayaal badan ayaanu weli ka soo wadnaa waynu soo gelin doonaa hadduu eebba awoodda leh oo idmo. inkastoo aanu horey usoo gelinay casharaan badan oo aad u saameyn badan oo maaragtay technical ah, laakiin haddana maxaa la yiraahdaa weli qof bilow ah ay casharaantaas anfici kareen. laakiin hadda weli waxaa dareemaya inay qofku u sii baahan yahay casharaan aad iyo aad u sii fara badan uu wax ka faa'iido, maadaama uu yahay qof waxbarasho aysan dhammaanin ay leedahay maxaa la yiraahdaa suuqa forex. waa adoo maaragtay basic ka bartay lacag waa samayn kartaa, waqtina waa maxaa la yiraahdaa waa gelin kartaa, waa kugu filan tahay. laakiin mar walba waxay rabtid inaad qof khibradda ugu sarreeya aad noqotid, dadka ugu sarreeya aad ka mid noqotid, waxaa u baahan tahay inaad cilmi maalin walba raadisid, information raadisid iyo warbixino kala duwan. sidaa daraaddeed waxaynu hadda kadib soo gelin doonaa hal muuqaal intay rabto aad ilaa 3 hadday doonto isbuucii, oo muuqaal wax tayadiisa iyo maaragtay wax ka bedeli kara tradingkaada hadduu eebba awoodda leh uu idmo. sidoo kale waxaynu soo gelin doonaa casharaan ku saabsan maxaa la yiraahdaa fundamental oo ah waxyaabaha maaragtay suuqa sida newska loogu trade gareeyo iyo sida newsyada loola sii diyaar garoobo. waxyaabahaas oo dhan iyagana waa soo gelin doonaa hadduu eebba awoodda leh uu idmo. keliya ma ahan inaan halkan soo gelin doono technical sidaan kuu sheegayba fundamentalka ayagoo bilow ilaa dhammaad leh ayaan soo gelin doonaa halkan. wixii ka dambeeyana waxay noqon doonaan muuqaalo wax kaa bedeli doono oo weekly ah heli doontid, laakiin ayaga fundamentalka marka hore waxaan usoo deyn doonaa hab tutorial ah. sidoo kale waxaa hawada soo gali doono maxaa la yiraahdaa bisha soo socota hadduu Allah awoodda la idmo maxaa la yiraahdaa websitekeena MK Skills One. so maybe waa laga yaabaa inaan halkaas soo gelino waxaa la yiraahdaa casharaantii oo iyagoo nidaamsan oo habaysan. sidoo kalena halkan waa soo gelin doonaa, labadaba waa soo gelin doonaa. laakiin halkaas dadka qaar waxa jira YouTube-ka aan fahmi karaynin qaabaha casharaanta iskugu xigaan, sidaa daraaddeed xaggaas ayaanu qaab habaysan ayagana soo gelin doonaa.
laakiin insha allah marka hore waa markuu maxaa la yirahdaa websitekeena uu soo galo hawada hadduu eebaa awoodda leh oo idmo. Sidoo kale waxaynu soo gelin doonaa channelkan aad kaga faa'iideysan kartaa waxa la xiriira technology-ga. Waxyaabaha technology-ga la xiriira maxaa ka mid ah inaan soo gelino maxaa la yirahdaa basic of computer, asaasiyaadka computeriska, hadday ahaan lahayd maxaa la yirahdaa Windows, Mac, everything. Insha allah waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican, sida ugu kooban, sida ugu maaragtay macquulsan in ayagana aan u soo gelin doono muddooyinka soo socda. Sidaa daraaddeed waa ka faa'iideysan kartaa si free ah oo maaragtay maxaa la yirahdaa aad jeclaan lahaydna adiga ayay kugu xirnaan lahayd inaad uga faa'iideysatid. Sidoo kale waxaa qayb kale ayadana ka mid ah oo technology-ga la xiriira aan soo gelin doono waxyaabaha graphic design-ka. Tusaale maxaa la yirahdaa isticmaalka Photoshop iyo Premiere Pro, Adobe Illustrator, After Effects, waxyaabo badan, casharaan badan oo la xiriira maxaa la yirahdaa design-ka, graphic design-ka casharaan badan oo la xiriira ayaan ayaguna halkaan soo gelin doonaa. Sidaa daraaddeed ayaguna waa ka faa'iideysan doontaa hadduu eebbaha la awoodo. Adiga ayay kugu xiran tahay oo wax kaa hortaagan ma jiraan. Si bilaasha ayaan halkaan ayagana u soo gelin doonaa. Sidoo kale waxaan bartaan soo gelin doonaa casharaan badan oo la xiriira programming-ka. Programming language-ku waa qayb ka mid ah maxaa la yirahdaa technology-ga waa qaybta ugu muhiimsan oo waqti xaadirkan loo baahan yahay. Qofku inuu website sameeye noqdo, inuu app sameeye noqdo, inuu waxyaabo badan noqdo aad iyo aad bay u anfacaysaa. Sidaa daraaddeed waxaan soo gelin doonaa casharaan badan oo programming-ka la xiriira, gaar ahaan haddii aan leedahay HTML, CSS, JavaScript iyo casharaan badan oo kala duwan oo bilow ilaa iyo maxaa la yirahdaa meel heer sare leh. Ma jiro maxaa la yirahdaa cilmi bilow ilaa dhammaad leh, laakiin waxaa jira cilmi leh bilow ilaa iyo heer sare. Sidaa daraaddeed waxyaabaha badankooda halkaan aan soo gelin doono waxay ahaan doonaan bilow ilaa heer sare wax ahaan doono oo wixii kaa dhiman aad adigu qof isbari kara mise maaragtay hagis badan haysta aad tahay. Sidaa daraaddeed u leeyahay kusoo dhawow barteena MK Skills. Insha allah waxyaabihii aad u baahan tahay, waxyaabihii aad jeclaan lahayd inaad sidoo kale kusoo kordhino oo qayb aynu uga dhigno aad is leedahay waa qayb ka mid ah oo waa quseeyaan. Adiguna maadaama aad tahay saaxiibkeena halkaan nagula saaxiibay, waxaan kaa codsan lahayn inaad taladaada iyo fikirkaada aad barta commentiga inoogu reebtid si ay insha allah ay u noqoto qof aad u noqotid qayb ka noqday maxaa la yirahdaa platform-kan oo qayb ku leh oo qayb fikirkiisa uga dhisay. Yacni wax walba energy-ga keliya laguma dhisay, xitaa fikirka waa number one. Fikirka hadduusan imaanin energy ma la bixin karo. Sidaa daraaddeed fikirkiina soo dhiiba. Insha allah wixii energy-gayga iyo dadaalkayga aniguna inaan bixiya ayaan rajeynaya. Insha allah muuqaalkan muuqaal xig intaan ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa mahadsantihiin dhammaantiin.